madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal kaga qayb galay dabaaldega xuska sanad guurida 18aad ee ka soo wareegtay aas-aaska qarannimada Somaliland ayaa markii ay soo dhamaatay munaasabadaasi waxa uu kormeer ku tagay gegada diyaaradaha ee magaalada Boorama taasi oo ka socday dayactir ballaaran iyaduna lagu sameynayo dib u dhis sida ay sheegeen maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama duqa degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici uga warbixiyay halka uu marayo dayactirka iyo dib u dhiska lagu sameynayo gegada diyaaradaha ee Boorama waxaana hadaladiisii ka mid ahaa khudbadeennina way ku jirtay horena waa u sheegnay tiifiyadana aad ka daawanayseen baryahan annaga oo iskaashanayna wasaaradda duulista halkan waxaanu ku bilownay airportkii isagoo aan in badan aan laga shaqayn ayaa hay'adda duulista iyo annagu iskaashanayna oo ka tusaale qaadanayna ama ka duulayna dardaarankii madaxweyne ku-xigeenka oo uu yidhi ina horumarka dalka diyaar baa loo yahay waxaad qaban kartaan ku bilaaba iminka waannu idin soo gaadhaynaaye tii baa keentay inaan airportkani bilowno xukuumadduna aad iyo aad ba ugu mahadsan tahay waxqabadkii ugu badnaa sidii horeba loo sheegay gobolka Awdal buu maanta ka socda xukuumaddu maanta ay wadaa biriishka lacagta ku baxday waad ogtihiin biriishay ku baxday oo Somaliland ku yaala ma jiro xaqiiq markaynu isku sheegayno airportkana waad arkaysaan inta ka dhimanna xukuumaddu ay ballan qaaday afkoogana waad ka dhageysanaysaan haddii Ilaahay dhaado laakiin dadka reer Boorama maxaa laga doonayaa hadalkii madaxweyne ku-xigeenku yidhi inay ta'kiidiyaan oo ay xasuusnaadaan baa laga doonayaa laakiin hadday hindi noqdaan dhulkay tageen degaan annagu soo rari mayno dhinaca kale Cabdiraxmaan Saydici madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo isna hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay hadal badan kormeer waxaan maanta ugu soo baxnay airportkii runtii Boorama oo codsi nooga yimiday shirkadda diyaaradaha ee Djibouti Airline oo tirsankan xagaaga waxaan jecelnahay dadkii aad buu imanayaa Somaliland aad baa loo imanayaa marka waxaan jecelnahay in airportka wax laga qabto waxaan la soo hadlay labada gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada runtii waxaan idhi wixii dadkiina kaashada waxaad qaban kartiin qabto airportka sida kale uu iska diyaarsan yahay maadaama muddo dheer laga shaqaynin oo de maartay oo rifmay oo baabuurta ay reer Boorama baabuurta ku barbartaan waxay noqotay meesha ku oo airportka xirmay waxay noqotay meeshii baabuurta lagu baray noqotay tii waxay keentay in marka airportkii maartay de raf noqdo marka runtii waa aad iyo aad baan ugu hambalyeeyay runtii maayarka iyo gudoomiyaha gobolkaba gaar ahaan maayarka runtii aad hawl adag buu ka qabtay waxaan arkayaa maanta maalintii waa soo maray mar dhexda ahayd ma soo marno de maantana waa meel isku siman shalayna waxa meel 100 ay ka sameeyay taayirada ay ku sawirmeen baabuurta ku sawirmeen marka runtii fariinta labaad aan dirnaa waxa weeyaan danta guud baa wax walba ka mudan waxa weeyaan airportka ninkii sandaqad ku soo galay iyo ninkii daarka ku soo galay isaga waxa la maanta loo joojin maayo intii airportku lahaa waxaan reer Boorama leenahay waa la soo xayn daabaya haddaad gudaha soo gashay aduba berri ka bixi doona waxaan leenahay laga hor imanin beeraley hadday tahay iyo cid kale oo si kale loo siiyay hadday tahay waxaan fariinta ama amarka bixinayna waxa weeyaan oo ku maamulka degmada gobolka ku amreeyeen in xaydaamkii iyo balaankii sidiisu soo celiyaan sidiisu loo soo cesho taas waa dan guud sababtoo cid loo qaado Salebaan looma qaadayo cid kale looma qaadayo waa danta guudeed kole airport baan doonaynaa in diyaariyadan rabnaa haddaan dibadda gudaba ka qaylino haddaan airportkii haddana dantii guudna ka hor nimaadno isma imanaysa dee xanuunka danta guud leedahay waa in la qaato qofkii ku soo khaldamay iyo ciidii sandaqada dhisay inkada guduhu soo galaya burcawad ogeedeen dadweynaha iyo dawladdu isku tageen waxa ku jiray waxa laga yaabaa inaga maanta haddii la soo xaydaamo in laga yaabaa in 20 qof 15 qof ay gudaha soo galaan burca 200 oo qof in ka badan 300 qof ayaa lagu xaydaamay waa laga raayay nin walba waxa la siiyay jaga la siiyay oo loo laakiin wax kale la siiyay ma jiro marka cidii sharci markii hore khalad ugu sharciyayna dhulbadalba dawladda soo sameeyay وعبد الغني محمد